xildhibaan Axmed Dirir Cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa shaki galiyay qaabka ay u socdaan biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa oo muddo 10 sano ka badan mashruucaasi la sheegay inuu socday isla markaana ilaa haatan aan midho dhalin waxaana xildhibaanku sidoo kale taasi ku micneeyay qaabka beebabka iyo dhaamamka kala duwan ee kaydadka ee mashruuca biyo ballaarinta dhanka kale waxa uu xildhibaanku tilmaamay inaan guud ahaan Soomaaliland aanay jirin siyaasad ku saabsan dhinaca biyaha oo lagaga hortagi karo biyo la'aanta iyo xaaladaha abaareed ee inta badan bulshada soo waajaha hadaladiisi ayaa waxa kamid ahaa mawduuca biyaha oo laba u qaybsama qayb waxa weeyaan biyaha Hargeysa ta kale waxa weeyaan biyaha waddanka oo dhan oo waliba gaar u ah abaarta Hargeysa ka bilaabo waan arkayay dhul la qodayo ku yaala gantaalaha jigjiga yarna loo qodayay meesha la yahay dadkana waa kii la qodayo oo inta la qodo la aasayo horta shaki ay u jira beebabka inay isku xiriirsan yihiin baan qodaya waa mid oo meeshii lagu qoday baan aasaya isku wada beegna waxa la hal hubiyo horta beebabka kan inay xiriirsan yihiin taan hubiyo taajisana soo dhaafaya waa tan abaaraha iyo biyalaanta markii ugu horreysay ma aha ay abaaru dhaceen iyo biyalaanta sanado badan oo isdaba yaala يدعي سعبار مر والبنا الساعة وواحد الله بك عبارته نعضونها بيوي واحد ورشان أنا كمان هين مرة دينا ورشك الله هين وهالكي هراء والكبر عابه إنه دوان نباته وحنور بهايها غرق دورتنا كمسؤولة شعب يحولون إلى الدولة تبادلوا بهايها غرشة أي كده وين يسوع أما كفر ضامن يسوع وحي اللي جوه تجيلها بيلعاتها أباروا إلى ما له توح الله بحيدل فانا الله بحي روب ضم ونقول بري إله حي الغيوم كا هبت إلهي وحنا كبرينا إن روب ضم تاسي أين كبرنا إنسان كبرنا إنه ينوجا أشيبه أو روب خير غمنا سيا آمين يا الله وحكراركي أو بخلنا روب ضم كانت الله آخره ونقول بري يونين للتاي ترى إله كبريا إنه عرضه إنه عدم أما نقول باتين هذا الحكم يقول جميلة والقرشة اللي ما تقرشة اليوم ما تقول الله هي شيء شفت الدورات بشفت بري وشفت إن شاء الله لكن قرشة اللي جوه تجلها بالتمات الرافت وقت الهبة وحي الهبة باليوم بعد دونا وحي يتولى المقتنع لمن دونا بالمستقبل خو قرشة اللي لا يمادو لا يهرتوا abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus